guddoonka xilka loo garto uu guulaysto geesiyaa tahe anaa huba inaad gudee heeraan la gaarin gaarsiyow adoo gayaa lagu gartee guulaystiyaa tahe maanta runtii madashan mahadnaqa waa madal aad u weyn waa madal aad u qiimo badan waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno ra'iisul wasaaraha xukuumadda hortiisa inaan uga mahad celinno mudane ra'iisul wasaare adigii madaxweynaha jamhuuriyadda magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa halkan nagula sugan allah u naxariistay guddoomiyihii hore duqii magaalada muqdisho marxuumka cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow injineerka wiilkiisa runtii annaga haddaan nahay gobolka banaadir dadka ku nool haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo bulshaweynta iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah xaruntii dalka waxaan islahayn geerida marxuumka kadib waa la indhabeelay waa la addima beelay laakiin garashada waa dadka intuu ilaahay geliyo inaad soo xusheen mudane cumar maxamed maxamuud filish guddoomiyaha gobolka banaadir waxay ahayd wax ilaahay loogu mahadiyo asiibid maamuuska xilkaas aad siiseen inaan idin dhahno mahadsanidiinna waxay nagu tahay waajib dhowaan waxaan rabnay munaasabadan la mida inaan diyaarinno guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada way og tahay xogeeyaha gobolka jaalle xogeeye guud cumar waa og yahay munaasabad haweenka iyo dhallinyarada gobolka ay isugu imaanayaan waana soo wadnaa oo na hor qabo guddoomiyaha la leeyahay oo guddoomiye jawaari iyo makaraane ay aad noogala shaqayn doonaan taasna waxay tahay waxyaabaha hadda carabka lagu dhuftay tan iyo maalintii la magacaabay wax badan guddoomiyaha waxaa la hordhigay sidii dhagxaanta loo qaadi lahaa waxaan rabnaa inaan xamaasadda yarayno si fiican isu dhegaysanno wax badan waxaan maqlaayay in guddoomiyaha la hordhigayay in dhagxaanta magaalada la qaado dhagxaanta lama dhigin magaalada caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana caasimada ka hormarsan oo adduun hore u mara u yaallay dhagxaantaan la yaallaan dadka soomaaliyeed hadda waxay u badan yihiin qurbo joog way og yihiin in caasimadaha adduunka dhagxaantaan taallo kuwa nidaamka iyo kala dambaynta buuxda siniin miniin lahaa bay maanta dhex yaallaan hadday afrika yihiin hadday aasiya ku yaallaan hadday ameerika tahay dhagxaantaasaad ugu tegeen hadda maanta madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu ka yimid UN assemblyga hortiisa dhagxaantaasaa taalla darasoo baydaan arkaynin markii orduqaan lagu soo dhaweynay ay jaaliyadihiisu bannaanka u taagnaayeen dhagxaanta shida ma laha nidaamkay wax ka qayb ka yihiin amnigana compromise ma galo sideeda eed iyo dhaleecayn isdaba socotana la qaadan karo mudana guddoomiye marka taas waxaan ku ballan qaaday inaan dhahno nidaamkii lagu qaadi lahaayna dadka inuu ka yimaado amni aan ummadda u ilaashanna ciidan ma ilaalin karo shacabka gobolka banaadir dhawaaq dheerna waan ugu sheegaynaa mid hoosena waan ugu sheegaynaa in ay ilaashadaan amnigooda amniga marka la ilaaliyo kama bilaabato markaas laakiin waa inaan noqonnaa isu diran isog oo aan soo sheegnaa waxa nagu dhex jira magaalada muqdisho gobolka banaadir hore aan u yiri haddana waan ku celinayaa ilaa looyacaddo ilaa raas kambooni magaalooyin xasilan oo waxa xamar ka dhaca aan ka dhicinaa jira liajli dadkaa soo sheegay hadday dadka la shaqeeyaan hay-adaha amniga maamulkana na horkacay yidhaahdaan dhagxaanta waa qaadmaysaa marka qayb ka mida nidaamkay ka mid tahay ee ha sharaysanina annaga aan shaqayno habeenii maalin intaas waxaan ku darayaa oo aan leeyahay markaa mahadsanidiin waa ku celinaa mar kale
6 bilood xukuumad madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan jirin muddadii la doortay markii uu soo magacaabay maalmo kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa barnaamijkii 100 maalmood ee ugu horeysay xukuumadda ayuu ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ku yiri ra'iisul wasaare aniga iiga fiican Soomaaliya idin xulay waa asiibadii ugu horeysay ee madaxweyne farmaajo ilaahay waafajiyay in ra'iisul wasaare xasan cali khayre Soomaaliya loo soo doorto una noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taas limid lamida ilaahay maanta idinku waafajiyay annagana aan ku sabarsanahay kuna qanacsanahay una diyaarsanahay inaan kula shaqeyno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho saasaan أولاد يا شعب يا هوية يا ويل يا أضيب عن وتاجنا وعلنا أحمد قري ما أودي من ما قبر من درويشكي جايدو مدلت وعن ربع إن نصير راعيه قدون كحلك الله قرته وقولي سجاسياته أنا هو إن أتقده هيران لقارن جارسيو هذا جيا لقو قرته قولي سياته dadka intiisa kale waxaan leenahay gaabiyo naga har gurguurto naga har kii garto gacanta hoos soo gal ilaa gurguri barwaaqo waxaan leeyahay hambalyo madaxdii ku garatay ra'iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynaha alf mabruuq mahadsan allah yibaarik fiik